Dowladda Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa inay wafdi u dirtay urur goboleedka IGAD. Urur goboleedka IGAD ayaa ay ku mideysayeen 7 waddan oo ku yaala Geeska Afrika. Ururkan ayaa dhawaan soo saaray qodobo u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, kaas oo ku saleysan muranka u dhexeeya labada dowladood waa Soomaaliya iyo Kenya ee xuduudka Belad Xaawo. Haddaba waa maxay qodobada ay ku sulugtay Soomaaliya iyadoo Djibouti ku eedeysay inay la safatay dowladda Kenya? Ma laga yaabaa in Midowga Afrika ku sii adkeystaan go'aanadoodii hore ahaana inay Soomaaliya gardarantay? Haddaba ururka IGAD ayaa laga eegayaa inay qodobo kale soo saaraan ama go'aamadii hore ku sii raacaan. Maxaase laga filanayaa haddii ay go'aanada ku soo eedeysato ururka IGAD? Soomaaliya maxay ku dhawaaqi doontaa? Ma inay xubinnimadeeda hakiso mise way iskaga sii dulqaadan doontaa intay taasi ka hagaagayso? Waa inoo iyo barnaamijka xiga. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi